قف مسكين أو أصلا برها بشدة وحير كراسة بطل وجستين هذا اللي وحوي يدك بلا ولا يلا نروح كرمي وانين أنا متخيل اسكاف قابن وحتى الصومالي بريش كبط أنا كان هذا بويسان كارك يعني قف برها بشدة أنا ما بعرف كان يوم قيمة إلهي الله يحشون سيكينا وحلي توبة تصور راعي ساني كان يجروب كيس لكن دول اللي قدبتها وادي دول اللي قدبتها وادي محاد مر وقادوي وش كين محاد سيكي وهيستلو أركواي أضو هيستم حلو أركواي حاجي وجروبكس ما أنت ما له وأسي حاجي ولالكيس عبد الله يا أرميه نبي يحكم بان كلام مرة فلوقي ما سكر الله بله يا دوشي كيسة يا ما أنت وش كينسا ورا ما لقى يوتيوب بعدين ورا ما لقى ما أنت أطلب راعي زمر صومالي بس كيس كذا شو أوف أصلا شو أوف هذا روح اللي جاي يلمي خلط وقوي هذيك ما أنت واحد مسكين كوتو بالرأس عدو بنا تهيني تيك توك هدات شوف هذيك وضعك دونتا وأنا حسون دونتا فيديو أنا وضعون دونتا وضعوسين دونا شيء علي بيقبل أن أوتكتي ما دام إن هذاك استحي جيم باود جناحي لكاس وحنا كويري waxay ku tiri walaalo arintaas ay haysto hal ay caawi wuxuu ugu jawaab walaadani game bay dhigan arinta hayga calqaladay ii kaadi kadib gamekiisi hayay ku tiri gabadhii miskiinta oo iska tagtay kadib gamekiisi kadib ay wax wadaaqada soo saaray dhowr iyo 10 kun miya wax noocaas ka toog waxaan naf lahayn way dhaafi weyn kadib intuu kaxeeyay hadana daar cali soo geey daar cali soo markii loo geeyay waxa wadaaqadiisa waxaan 12 kun ahayn dhaaf way dhaafi weyn 12 kun waxaan dhamay reer Malaysia eeg waa dhamaysana reer Malaysia سينما لوكم عذر داري كرو سينما لوكم عذر داري كرو سينما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهد بأيضا إذن السلام يا رمانتين ميركستو أجوكتان لله وإنا إليه راجعون وحلنا هاي ولاشن سمسم وحوي كيلي أسوق شيء إلهي وحن قالت شيء يعني متقانا سمي الإيمان رمانتين لقى وصيه أيضا سكارة يفهم كذا وصيه ويلقى يركاه إلهي أفصد إلهي تعالى إن شاء الله تاسو حن وجود بيا برامج سمسم يا حالة هذا وحن بس برامج كلفتكس إن أنفنتك الشيء ومانتا أو أنسيتو سكوده أو قرب Soomaaliya waxaad idinku dhamaantiin wada eedayseen ama ma taqaanaa hiiraac wax la yiraahdo aad ku samayseen oo aad dambi ka gasheen walaal miskiin ah asxaajiyo iyo asxaabtiisa run ahaantii asxaajiyo ma mudna wali afgaaban waa nin waxa weeyaan waxyaalaha qaar aan ma taqaanaa isdaba ordaya iyo ma taqaanaa waxa weeye arrimahaas aan jeclayn Soomaali oo dhan si khaldan ayay ku degtay wiilkaas asxaajiyo ah sida muuqata gabadha uu caawiyay subscribe ma haysan waxa weeye ilaa iyo 80 kun baad ugu timaaday Soomaaliya haddii runta la sheegay asagana kamid ah raggii soo kiciyay iyo dhammaan reer Malaysia oo dhan dhalinyarada reer Malaysia khalad weyn baa laga galay ayadoo la cunsuriyeynayo oo leeyahay waa shaanshi waa dad cad waa dad aan waxa weyn sabahayn waa dad aan fiicnayn waa Portugiis hadal noocaas magaala Malaysia wax laakiin gobadnimo oo Soomaalnimo ma aha runta kale hadal qofkii ugu horeeyay oo runta ka hadlaa noqonaya barnaamijkan waayo ilaa waxa weey Soomaaliya hal meel bay u xarrataa in wax loo sheegana waa muhiim walaalayaal tusaale la disinaya shiina culay oo aad wada garanaysaan تيك توك هدات شوف أديك وضعك دونتا وأنا حسون دونتا فيديو أنا وضعون دونتا وضعوسين دونا شيء علي بيقبل أن أوتكتي ما دام إن هذاك استحي جيم باود جناحي لكاس وحنا كويري waxay ku tiri walaalo arintaas ay haysto hal ay caawi wuxuu ugu jawaab walaadani game bay dhigan arinta hayga calqaladay ii kaadi kadib gamekiisi hayay ku tiri gabadhii miskiinta oo iska tagtay kadib gamekiisi kadib ay wax wadaaqada soo saaray dhowr iyo 10 kun miya wax noocaas ka toog waxaan naf lahayn way dhaafi weyn kadib intuu kaxeeyay hadana daar cali soo geey ashahan daalad weerta dhalasha ahaan adeertiis waa gabar uusan galiye way la soo xiriirtay way la hadash intaas oo pointi ma arki weyn Soomaaliya runta markii laga hadlo aniga aan tubaracaysan gacan waay xaqiiqada idin sheegaya fiidiyoashan ila daawo dhirtu siday isu xigto bay isu xoqdaa baa la yiri waxa la leeyahay asal xaajiyow iyo bandhabowga iyo gabdhaha halka joogay waxa la leeyahay shamsi lagu qaado rana runta idin sheegayniyo gabadhan adeer ninkii ay la soo hadashay oo dad ugu xigay oo in adeerkeed ahaa inta la soo hadashay ku yiri game bay dhigniyo uu daawanaya qolkaniyo halka qolka dhufaniyo shiina culay soo qaba qolka soo saar inta la soo hadashay ku tiri dhibkaas ay haysta isbitaal baan ku jira markaas yiri game bay dhigan Idris Baba game dheelaya uu ka dhaca habeenkii markuu gamekiisa dhameystana qolku inta soo saaray buu yiri gabadha diyaarada lagu dhufto 8 kun bay dhaaf weydaniyo habeenkii saddexaad intuu ka xeeyay uu daa'ir cali soo u geeynayo markaas 12 ku dhaaf weydaniyo وشمس على القاضي بندبو محل وشمس عيد هذه القاضي ناقان لو باهن إيمان كلا على القاضي نيو أو قبل قرصين نيو أو كستمر كديكتي ما أنت قلب جوادي وحنقول إذا قولك على صوص شين علي وأنولي قولك يا يوصص قولك يوصص صاري قولك يسجل مركو صوص صاري وأتري وحنقول قولك على تارجت كاجا لعت أن نجربته إيه أنكو أرورينه ee aad nagu soo laabanaynin ee kugu filan maxayta
gabadhii waxay tiri waxaa igu filan $10,000 waxaan ku yidhi fadhiga loo kala ka imaya qaybta koowaada qolka ii saaraw halkaygiyaan ka dhawaaqay halkaygiyaan aniga naadiyey qolo ma tahay ma dhihin inay warsangeli tahay ma ogeyn inay daaro tahay ma ogeyn gabar oo shiili ii soo sheegay ii ahayd oo gabar Soomaaliyeed oo gabadheedu kala ah hooyo Soomaaliyeed cunuga xanuunsan yahay halkii baan ka naadiyey lacagtii baan cash app ugu aruurinay Mareykanka ilaahay iyadoo cusbitaalka joogta aniga shiina marka hal arrin aan isku canaananaya waxaan isku canaananayaa aniga dee bini aadan ba ahayoo xoogaa waa orday laakiin runtii intii gabadhaas ay iga istaaheshay waxaan isleeyahay ka badan ba intaa qaban kartay intaa 2 habeen oo qol soo furto iyo 2 saac meel ku jirto ka badan aan qaban kartay laakiin waa iga hoos baxday taas asaga la dhalatay annagana wayna la dhalatay gabadhu dhammaantiin waa u baahanay laakiin Soomaalnimo iyo wax soo qabta maanta xaqiiqdaynu ka hadlayna tolnimo iyo wax soo qabta ehelnimo annagu maana ogeyn daaroodnimo noogu mukiin Soomaalnimo noogu mukiin yaa khaldan ilaahay baa idinku dhaashay idinka garta idin jibiya ilaa wax garaynu ku wada hadlaynaa ma aaminsan tahay in wiilashaas la dulmiyayo mise ma aaminsan anigu 200% baan aaminsan waayo wiilkaas asaga disable ah asaga u baahan caawimaad wuxuu karaankiisa ahaa uu qaban kareen uu qabtay wixii uu qabtay haddii dacar loo leefsiyo oo dacar looga dhigo maanta ka war qalbiga miyaad ka dhaawacsan bini'aadamkii maadaraya wiilkaas dulmi weyn baa la galay Soomaaliya ilaa 60,000 oo subscriber laga laabtay ka badan 1.16 bulshada maraya maantana 1.1 buu maraya ilaa 40,000 oo subscriber laga laabtay dulmigaasna maxaa u geystay waxa la ushii munaafiq loo wado muslim bay ku dhacdaa usha xaqiiqdeeda waxa iska lahaa in lagu dhufto ninka intay gabadh la soo xiriirtay oo u soo oyday oo in adeer ay soo tiri oo ogaa gamekiisa ka doorbiday oo ayada wax u qaban waayay kadib markii game ku dhamaadna qabta maqash waxana uu qaban sameeyay oo aan xataa hal diyaarad u dir la TikTok weyn uga soo dhamaantii dadka daawada baraha bulshada oo Facebook iyo YouTube daawada TikTok gar waa soo wax ka socdaan wada ogti ilma adeer dulmiga ilaahay banaan buu mari dul inal halaalu bayiman wa inal haram bayinan حراشون وعدا حرامتون وعدا نينك aad khaladka ka gashan Soomaaliya cafis weydiista asal xaajiyo shalay Soomaalnimad ugu gurmateen shalay Soomaalnimad ugu kacdan shalay isagoo ooyo ilmeynay oo waxba aan haysan biidin walaalayaal madaxiina ugu kacdan maanta marka waxa weeye ma saxankii aad wax ugu shubteen baad xaal ugu shubaysan naaw khalad way waxas ladaas iyo familias beauty wax ka raasada ilmaada reeyal wax dhibaataynina waxaan arkay siiki midgaankii siiki ah oo u tuuba raacaya siikeew midaan ku leeyahay adig muddo hadda dhowr bilood laga joogo haddaysan 6 bilood 4 bilood ka badan bahayn waad joogtay Malaysia waad ka soo laabatay maxaad xanuunkooda iyo xumaantooda uga hadlay maxaad mar uga sheekoon maxaad nimankan wax yihiin mar hore lagaaga maqli way adoo maalin live soo galay tikay ka sheekeynay maaragtay no ma yadaan Soomaaliya indhaha istidaan idinku Soomaalidu waxay taqaanaa hurruk hal meel ku yaacay hurruk meel kale yaacay hurruk meel kale yaacay armaan qiimeeya miisaan saara wax khaldan gabadhaas in la taageero ana rabo waan adeertay waa dhiigeygii waxa weeye ayadii baa waxa weeye taxsiin gashay waxa soo ogaa laakiin dulmiga ay aad galaysan bahad ka taran ayada wixii ku dhicay ku dhaceen inkastoo ma sha Allah ilaahay waxa weeye ilaahay ilmaheed u oofsaday oo waxa weeye saqiir aakhira uu yahay haddana qof miskiin oo asna baraha bulshada wax yar ka raasada baa dulmi u geystay hadal waxa weeye wuxuu idinkaga bilaabo walaalayaal waxba ka garanay waayo waa nin aan mataqaana iska afgaaban oo xataa Soomaalidu markii pressure ka bato dadkan hadba weeysan ka arkaan qofka baraha bulshada aan walba ba arkaaniyo qiimeeya dhalinyaradaas marka dembi baad ka wada gashay dhammaantiin tiim mushamsiyow dembi weyn baad asal xaajiyo groups ka iyo Soomaaliba ilaahay ha loo xisho siikeena waxaan leeyahay tuubaad u soo raacaysaa ninkan iyo groupkiisa laakiin dulliga dhabta waa adiga maxaad mar uga hadlay uga sheekin maxaa adoo siikee oo haysta loo arki waayay adoo haysta maxaa loo arki waayay xaajiyo groupkiisa maanta ma leedahay asal xaajiyo walaalkiis Cabdullaahi iyo arrimaheena way xun baan kala maray farowgii baan iskala laabnay yaa u sheegaysaa yaa maanta uga sheekeynaysaa hore ma laga YouTube baa tahay hore ma laga maqlo maanta u tubaraysa marka Soomaali baa iska gadaysaa show off asameynaysa show off hada waxa laga yeelay khalad ugu weyn adiga maanta waxa miskiinka u tubaraysa cadow baana tahay niyo Soomaali marka mid baan leeyahay Soomaali waxaan ugu soo gabagabeynayaa shiina culayga dambiga iyo groupkiisaas kale iyo waxa weeye dadka mataqaana gameka la wadwaday shiina culay baa barnaamijka wax way ka aamusay gabadhaana waxa weeye xataa hadduu saas wax u qaban lahayn dad tol ah oo ehela bay ka dhalatay oo waxa weeye meel walba caalamka degan oo dhaqaalaha haysta oo Soomaali daarood iyo Soomaali bale runta maanta Soomaaliya wax soo qabta daaroodnimo wax soo qabta nimanka waxa weeye aad ku caynaysan waxa weeye nacab mashmashka iyo mataqaana bajiyaha iyo qadar bajiyaha iyo mashmash waa shaqo kaadi geel baa waxa weeye habeen geel baa ku taal kan xuka afsabiin kaadi geel baa ku taal
kaadi geel baa kaasoo ureysaniyo dadkaa sharafta la faraha ka qaadeen au tuuba raacays maanta muuqaaladaa qaadiyo soomaalida qalad bay gelaysaa qaladka ugu weyn qof kale waa in la raadiyaa ilaahayna laga baqaa dadkaan waxa weeye aan hadlayno iska shibanayaasha oo aan dhibta badan lahayn oo iska aamusan in maadareyaalo ha dhibaataynina oo ha isugu teginina soomaaliya waxaan beri bay dhammaanaysaa laakiin meel waxay isku dhammaan gabadhaan waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad waa kaaga tacsiinaynayaa insha allah waxa weeye soomaalina garab taagan tahay maasha allah shalay markaad u imaan sideetanku cid taqaanayo miyaa jidhi sideetanka kun maahane cid kaloo garanaysa miyaa jidhi maanta waxay khayr jabaan samaynaysaa gaarsiiye 500 gaarsiiye 500 habilin gaarsiiye hadda kolley ashuru sheegaysaan soomaaliya gabadha 500 gaarsiiye oo hal mar mis subscribe wada saara meel fiican baad u timaadeen kor u sii qaada dadkaana ammaan bay mudan yihiin wiilasha dhalinyarada dhan wallahi billahi taala ammaan bay mudan yihiin dhalinyarada reer Malaysia ammaan bay mudan yihiin wixii shakhsi qof asaga u gaar waa meesha laakiin dhalinyaro wanaagsan weeye yaan lagu qaldamin wiilkaasna wax way si gaar ah loo soo raargin asxaaji wallahi aad bay idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh